munaasabadan sida weyn loo soo abaabulay waqtiga badanna lagu bixiyay qaybihii dhexe ayaanu xafladda kaga jirnaa inkastoo qaybo badan oo aad xiisaynaysaan ay dhiman yihiin oo madadaaladii iyo weliba heesii ay ka mid yihiin markan waxaan u yeerayaa wasiirka waxbarashada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug waa burhaan warsame cigaal wasiirka waxa uu bixin doonaa hadiyad ku aadan abaalmarin ay helayaan koox ku guulaysatay tartan lagu maamuusayay 5 sano guuradii ka soo wareegatay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka sidoo kale waxaa jiri doona dad badan oo lagu sharfay iyana inay wax ka bixiyaan hadiyada wasiirka qodbadiisa kadib ayaan u yeeri doonaa haya mudana wasiir ku soo dhaw bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhamaan madaxda ka soo qayb gashay xafladatan aadka loo soo agaasimay iyo shacabka oo ay ugu horeeyaan madaxda dowladda TFG-da wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe Soomaaliya mudane Cabduqaadir wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda safaaradda Soomaaliya Kenya madaxda dowlad goboleedka galmudug maamulada kale ee ka soo qaybgalay wasiirada qorsheynta sanad guuradii shanaad ee galmudug sida madaxweynaha dowlad goboleedka mareeg ee walaalaheena dariskeena ah bahda saxaafadda warbaahinta dhalinyarada reer galmudug iyo kuwa martidaaba hooyooyinka reer galmudug ee ku sugan waddanka Kenya ee caaway qayb weyn ka qaadanaya munaasabada galmudug ee sanad guuradii shanaad madaxda kale aan xusin oo aan runtii aan arag dhabi karin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan Soomaaliyana ha noolaato ha midowdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya sharafteedii Allah u soo celiyo galmudugna ha noolaato galmudug ujeedadii ay lahayd way gaartay galmudug sababtii loo aasaasay waa la sheegay caaway waa dhagaysateen waxaa ka mid ahayd in la hormariyo maskaxda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolada dhexe inay ku noolaadaan nabad horumar baraare iyo barwaaqo in dadkaasi loo sameeyo maamul in dadka Soomaaliyeed ee kale ay u noqdaan horseed iyo hoggaan sida gobolada dhexe hore lagu yaqaanay taariikh ahaan inay Soomaaliya dadkii hoggaamin jiray ay ka soo baxeen gobolada dhexe mudanayaal iyo barooyin aniga ma rabo inaan wax badan sii hadlo hadalkii waxaa dhameeyey madaxdii hore ee hadashay ee wax kasta ka hadashay waxaan rabaa wax yar inaan ku soo qatimo oo aan ku soo gabagabeeyo dhinaca reer galmudug ee munaasabada taqaaliga ku aadan sanad guuradii shanaad oo muddo yar hadda la soo dhaafay sida ogtihiin Soomaali dhibaato way ku dhacday laakiin waxa laga bartay 10 maanta aan isleenahay inta joogtaa way ka faa'iideysan kartaa dibna qarankii way soo celin karaan waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay u soo laabato sharaftii iyo karaamadii iyo qarannimadii ayadoo runtii ay u yihiin tirar maamulada jira ee hadda dhisan oo ay ka mid tahay galmudug state waxaan rabnaa
oo aan rabno inaan waxqabad samayno waa in ficilkeenna iyo qowlkeenna ay israacaan oo wax walbana aan ku salaynaa diinta islaamka iyo alla ka cabsiga iyo isku tanaasulidda iyo wada shaqaynta iyo horumarka iyo in la iskaashado taasna waxaan rajaynayaa galmudug inay u leeyihiin dhaqan iyo hiddo inay u leeyihiin ay leeyihiin dad runtii lagu yaqaano waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka sheego waxyaabaha runtii galmudug ay ku tilaabsatay muddada ay jirtay oo 5 sano ah waxaa ugu horeeya xagga waxbarashada galmudug markii la aasaasayay waxay ahayd Soomaaliya meesha ugu waxbarashada markaasi ugu hooseysay maanta waxaa ka furan labada gobol ee mudug iyo galguduud in ka badan 75 iskuul oo hoose dhexe ah waxaa ka samaysan in ka badan 300 oo dugsiyada lagu barto waxbarashada dadban oo ay ugu horeeyaan kuwa dumarka wax ku bartaan waxaa ka furan dugsiyo sare oo tiradoodu ay fara badan tahay waxaa ka furan jaamacado maanta dadka jooga Soomaaliya meel kasta ay joogaan ay u yimaadaan inay wax ka bartaan hadda oo la joogo waxaan rajaynaynaa in sanadkiisa kale ay waxbarashadu gaarto inta hadda ay marayso oo laba jibaaran ilaahay idinkiisa taasna waxaan kaashan doonaa ilaahay iyo shacabka reer galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed oo walaalahana ay dariska nahay waxaan rabaa maadaama wasiirka amniga uu maqan yahay xagga amniga iyo soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed ee ku soo qaxay gobolada galmudug inaan wax ka sheego sida loo soo dhaweeyo waxaad ogtihiin intii galmudug ay jirtay oo ay shaqaynaysay waxaa la shaqaynaya hay'ado caalami ah iyo kuwa dawli ah ma jirto cid wax lagu yeelay galmudug 5 sano ay shaqaynaysay deegaanadeeda taas waxay muujinaysaa in amniga galmudug uu yahay midka ugu sareeya gobolada Soomaaliya waxaan rabaa inaan sheego dadka reer galmudug shacabka waa dad aad iyo aad u caawiya dadka walaalahooda kale ka soo qaxay gobolada kale waxaad ogtihiin barakacyaal fara badan oo ka soo qaxay gobolada kale ee Soomaaliya in galmudug si diiran lagu soo dhaweeyay oo ay noqdeen dad reer galmudug ah marka loo fiirsho soo dhaweynta waxsiinta iyo naxariisanayaan dadka reer galmudug waxaad ogtihiin in shirar jaraa'id iyo si gaaraba galmudug lagu hambaliyay soo dhaweynta shacabka Soomaaliyeed ee walaalahooda waxaan rabaa in caafimaadkan laba eray ka iraado waxaad ogtihiin oo ama hadda aan sheegaynaa deegaanada galmudug waxaa ka furan isbitaalka ugu weyn gobolada dhexe kaasoo siiya daryeel caafimaad ee dadka ku nool gobolada dhexe ilaa Itoobiya looga yimaado runtiina waxa ay ku suurta gashay amniga ka jira galmudug oo taas ay ku suurta gashay cid kasta oo Soomaaliyeed iyo wixii kale dariska ah wadamada kale dariska ah inay yimaadaan deegaanada galmudug ayuu runtii caafimaadkooda si wanaagsan lagu hagaajinayo ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan mar kale aan iraado sanad guura wanaagsan hambaliyo galmudug dadka maanta halkaa jooga oo waxaad ogaatiin inaad ku xusaysiin waddan kale oo aan ahayn galmudug ama Soomaaliya waxaan filayaa inay macna inay samaynayso inaad ogtihiin in meesha aad ku xusaysiin inay tahay waddan kale marka waxaad dareemaysiin in ay muhiimaddu ay tahay iyo meesha loo socdaa sidaan aad u joogtaan Kenya inaad ugu laabataan Soomaaliya gaar ahaan galmudug waxay dadka rabo inay wax qabtaan oo ay maskaxdooda la maalo
oo waxtara oo aqoonta leh waa idinkina waad soo baxdeen yaa wadankii dadkii yaa u adeegaya yaa caafimaadka ka shaqaynaya yaa waxbarashadii ka shaqaynaya yaa amnigii ka shaqaynaya haddaad u sheegaysaan balanta ayaa laga bixin intiinaan waxa weeye inal caada kaana mas-uul ilaah qur-aankiisa ku leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan mar kale mahad celinaya madaxda sharafta leh ee ka soo qayb gashay sanad guuradii shanaad ee galmudug gaaraan waxaan mahad celinayaa kooxda dhallinyarada galmudug ee soo abaabushay soo abaabushay xafladda aadka iyo aadka u qiimaha badan ayagoo jooga waddan qurba ah ayagoo runtii dhaqaalahooda uu hooseeyo ee dadaalkaa muujiyey maantana soomaali cashar u muujiyey ay ku daysan karaan waxaan rajaynayaa in shir intaas qolaa ama saa u ballaaran inuusan ka dhicin waddamada qurba ah soomaaliya xitaa iyadoo xitaa laga hadlaayo marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadaalkiina si laba jibaara waan ku mahadinaynaa aad baan u mahadsantihiin hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhallinyarada soo qaabaqaabiyey iyo intii kaloo gacan siisay bahda saxaafadda adinkana waxaan leenahay jasaakum allahu khayr wax fiican ayaad baahinaysiin sidoo kale waxaan salaan hawada u marinayaa shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer galmudug ee idaacadaha iyo telefishinada naga daawanaya meel kastoo ay joogo waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan nabad wanaagsan horumar wanaagsan iyo iskaashi meel kastoo aad joogtiin haddana waxaan rabaa sidii hore u maqasheenba waxaa la xusay oo lagu maamuusay sanad guurada galmudug koob loo dhigay oo ay dhex maray dhallinyarada reer galmudug ee ku sugan waddanka kenya iyo koox ka tirsan waddanka kenya ciyaarta ani goobjoog baan ka ahaa waxayna ku dhammaatay 1 iyo 7 oo ay ku raayeen kooxda galmudug ka socotay sidaas daraaddeed waxaan doonaynaa in abaalmarintii ay mutaysteen inaan siino kooxdii galmudug ee ku raysay 7 gool ama 7 dhibcood waxaan u yeeraynaa madaxda kale waxaan ku rajinayaa daadiyaha xiriirka khaliif kusoo dhawo khaliif mudane wasiir aad baad umahadsan tahay ummad waliba